بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan bilaabi doonaa hadduu alle ogolaado koorsada la yidhahdo supply chain management lecturer oo ah ama anigoo idiin soo jeedin doona anigoo ah Saddam Hussein Maxamed. Chapter 1 part 1. What is a supply chain? Horta waa maxay supply chain? Supply chain, also called the value chain or demand chain, it encompasses all those activities associated with the moving goods from the raw materials stage through the end users. Supply chain sidoo kale waxaan dhihi karnaa value chain ama demand chain, waxayna ku kooban tahay all those ama ay soo koobaysaa dhammaan activity-yada la xiriira in alaabihii ama badeecadihii loo raro ayagoo unprocessed ah ama unprocessed stage ama raw materials stage ayagoo ah through the end users, ugu dambeyntii ay isticmaalaan end users ama customers. Or sidoo kale waxaan dhihi karnaa supply chain is a basically group of independent organization. Waa macnaha asaasiyan waa group madax bannaan waa ama organization madax bannaan kuwaas oo isku xidha connecting together si wada jir isku xidha to their products and service, macnaha adeega iyo badeecadaha ama productiga that they are separately kuwaas oo kala baxsan or they jointly ama isku jira ayagoona ku daraya qiimo in order si ay u yeelato ama ay u gaadho deliver them ama ay gaarsiiyaan to the end users ama the customers ugu dambeyn ay gaarsiiyaan waxaa la yiraahdaa supply chain supply chain ama demand chain. Haddaba tusaale ahaan haddaan usoo qaadano waa maxay supply chain-ku ama demand chain ama value chain. Supply chain or example of the supply chain activities waxaa ka mid ah including the farming, beerihii oo kale inuu alaabtii lagu soo qaado ayagoo raw materials ama processed ah in la keeno warshadii then through the customers loo gudbiyo, ama refining in la sameeyo turaan bixintii ama design-koodii ama alaabtii loo design gareyn lahaa. Sidoo kale in loo alaabta warshadeyntii alaabtii la warshadeynayo iyo packaging alaabtii kadibna la package gareeyo ama la bacaydeeyo, then the transportation. All activities kaasi waxaa qabanaya marka waa supply chain ama value chain ama demand chain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.